هذا ما أنت وحاس عضر مقالة جدة سعودي ولا مده خطبوين الآخرين يا خطبوا ولا ما حكوا سبسم تغنى فتوى الصوص صاري بقر كملها هي أصحابتي سأو صوص صاري بحي هذين ورك اللي هذا إخوان المسلمين كا إنه أرجع حسية خد مساجدها الله خطبة كله إخوان المسلمين لما حدكم مغليسين مدحين مرسي كسب بلو ضد مظلومين oo xabsida ka buuxa oo wadankooda u shaqeeya oo la dulmiyay aqligu wuxuu keenayaa qofka madluumka in la garab istaago laakiin in daalimkii la garab istaago oo madluumkii la yiraahdo asaga gardaran taas marka mushkilo ma leh waxa dhacaysa ma taqaanaa qofka hadii la dulmiyo markaa uu soo baxaaba hadii ikhwaan muslimiinka xabsiisi looga buuxinayo ama sacuudi ha joogeen ama masar ha joogeen ama imaaraat ha joogeen xabsiisi ugu jireen culimadoodii hadli lahayd oo dhan xabsi ay ku jiraan ilaahay wuxuu soo saaraya marka kuwa ka soo horjeeda ee boqorada taageerada u ah ayaa magacooda qaadqaaday marka dad badan marka waxay dhahayaan war dadkan wax laga sheegaayo ee maanta khudbada lagu soo qaadanayay bal horta maxay yihiin aan baarno ma argagixisa mise argagixisa ma ah markii la baar waxaa soo baxaysa dadkan inay yihiin dad u imaaday faham ah war dadka muslimiinta kitaabkooda qur'aanka waxaan la kala qaadayo ay u bixiyaan nidaam al-islaam siyaasi wax la yiraahdo islaam siyaasi iyo islaam غير siyaasi ma jiro islaamku wuxuu imaado dhan waxay tahay dadka in la maamulo wa an yahkum baynahum bima anzala Allah kuwa boqorraa marka oo ayagu xukun haysta yaa say dadka uga ceshadaan yaa waxay kuwaas xukun ay rabaan oo way haday ayagu xukun rabaan doctorkan Faisal Qasim al-Jazeera ka hadla wuxuu yiri waxay dhahayaan boqorrada iyo madaxdaasi islaamiyiintu yas'awna lis-sulda xukunkay u socdaan markaas waxaan weydiinaa boqorrada iyo militariga afgambiga ku qabsada hal yas'awna bayna safa wal marwa ayagoo sacyigooda safa bil marwa ay ordaan u dhahay soo ayagu xukun ma haystaan xukun in la raadiyo haday dambi tahay adu maxaad u haysataa marka waxa la tanna an khuluqin wa ta'ti mithlu dadkay ka ceshanayaan marka dadka guud ee aan xaaladda la socon yaa waxay u sawirayaan ayagoo kuraasooda ilaashanaya kuwaas waa dad xun kuwaas waa nooc xun iska ilaaliya marka taas ma soconayso waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala ummadda islaamka maanta meesha ay marayso hadda waa artay markii oo nabiga sallallahu alayhi wasallam faransiiska wax ka sheegeen caalamul islaami oo dhan intiisa badan uu wada kacay kuwa waxay soo dhajiyeen waxa dadka kiciyay waa ikhwaan muslimiin war dadka ay diintooda difaacanay ayaga nabigooda difaacanay adigu haddaad rabto in shib laga dhaho khayrka oo diintu farayso bal adu samee oo boqorku aad intuu soo fariisay yiraahdo saacada aan laga bilaabo wadankan waa ardul haramayn sharifayn muslimiinta waa meesha adduunka ugu jecel yihiin qof muslim oo adduunka jooga oo la dhibaateyn kara ma jiro muslimiinta oo dhan waxaan ugu baaqayaa inaan halkan aan hoggaan ka noqono oo sidii asxaabtu ay halkan uga dhaqaaqeen aan diinta u soo hirgelino oo ka shaqeyno bal waa kaas qofka hor imaada la arko laakiin maraykan aan dabada kula jira oo taraama lacagta eber ka dhigay oo ka dhameeyay oo ingiriis ah meesha ugu haaya haddana saasay tahay waxaan dhahayaa kuwaas oo iga soo horjeeda xukunkay u socdaane waa argixise naga ilaaliya ay qof kursi ilaashanay wuxuu doonay hadho la kursigu ilaashanay laakiin wax laga xumaada qof magac diimeed ku hadlaaya oo haddana diintiisa yahay aan uga run sheegin haddii diinta cadaalad inta hal isku xukumo la yiraahdo xukaamta madaxda carabta xaaladda ay ku sugan yihiin haddii diinta loo bandhigo ma sidii Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman ba ma aha Malaysiyaanka waxa laga sheegay Indoneesiyaanka waa dad moogtay akhlaaqda ku soo islaameen tujaar baa tagtay saasay ku soo islaameen siirada markay akhristaan waxay aad u jeclaanayaan marka nabiga iyo asxaabtiisii iyo dhulkan kuwa soo aadaali markay meesha imaadeen maskaxda qofku waxa ku jira moogtahay haddii dhulkii asxaabtu joogi jireen uu tago asxaabtii inuu ugu tagi meesha markaas waxay ugu tageen sidii asxaabta lagu yaqaanay si aan ahayn oo asxaabta maxaa lagu yaqaanay muslimiinta ay soo dhaweeyaan muuminiintu ay jeclaadaan gaalada ay ka bari noqdaan muhammadur rasuulullaahi walladina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffari ruhamaa'u baynahum waxa loo tagay gaaladii oo aan waxba la weydiinayn muslim socda oo la qabanayo leeyahay waa lagu tarxiila war xagadii wada kacbadan aan u socda aniga ma waa baxaysa mid Pakistan marka 8 mar wax ku dhaw la tarxiilay uu soo noqdaa le waxaan niyo maad iska joogto wadankaaga wuxuu raanimayo anigu waxaan jeclahay kacbada carabigan moogtay waxoogaa way yara jijabinayaano
dadkaas inaga fog carabi aad uma yaqaanaan wuxuu dhegeyso waxaa ii sheegaya maka fii ana fii makaba intay jirto anna waa imaanale weligiin bay celiya idinka muslimiintu marka maka saa u jecel oo in la hogaamiyo u baahan meeshii muslim laga soo dhoweyn lahaa yaa wuxuu arkay muslimkii oo la ihaanaynaayo gaaladii oo la soo dhaweynaya hadda maalan laba soomaali ah oo midna baasboor kanadiyaana wato ama maraykan midna baasboor soomaali uu wato bal xajka dadka tegey fiiriya walaalo isla dhashay waaye kan laakiin wuxuu wataa baasboor kanadiyaan ama maraykan kan wuxuu wataa baasboor soomaali ah kan kanadiyaanka wata ee soomaaliga ah ee walaadkii la socda markuu baasboorkiisa taago bimujarad United States of America markii lagu arko tafadal ya akhiina adi horta u soo soco horka soo soco kii Soomaaliya isa socdeen ala jamb ada xaq ay fariiso markaas maanta lagu daahina kii mar hor u bax wuu ku rafaada banaanka ugu sugaayo marka dambe waxa laga yaabaa inuu yiraahdo hotel aan soo imaan kuma sugare maxaa kala leexiyay warqada kala leexis maxaa la isku ogaa si isku ogaa asxaabta de meesh joogi lahayn muhammadur rasuulullaahi walladina ma'ahu maxay ahayd ashidaa'u 'ala al-kuffaari ruhamaa'u baynahum soomaa ninkan Soomaaliga baasboorka wato waxa lagu ixtiraamay kanadiyaanka ma aha Soomaalinimadkiisa iyo midabkiisa ma warqadan waxa ku qoran dadka iska leh laga cabsanaya goorma isku gaala laga cabsado yaa ayuha alladina aamanu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraam ba'da 'aamihim hada wa in khiftum 'aylatan fasawfa yughniikum Allahu min fadlihi so quraan ma markaas akii Maleesiyaanka markuu imaado wuu yaabay gaaladii oo la soo dhaweynayo muslimka oo la eriyaayo wuxuu niman yahow waxa idin sheegaa ani markaan wadankan iimaanay waxaan u maleynayay Umar ibn Khattab iyo Abu Bakr as-Siddiq iyo inaan ugu tagi doono dhaqankoodii iyo sida aan ku maqli jiray siirada laakiin meesha waxaan ugu imaadayba Abu Jahl iyo Abu Lahab aan ugu imaaday meesha yaani dhaqankii Abu Lahab iyo Abu Jahl oo gaalada jecla oo muslimka necba ayaan meesha ugu imaaday wax jiraan marka xaaladda sidaas ah qofka ku dhex jiray oo la rabay inuu culimada haduu yiraahdo war Ilaahay ka cabsada dhulkan ma aha حتى لما مد أحد دولك كلام مسلمين دنبيج اللجوء سمايو وكدرن يهاي دنبيج دولك كلام اللجوء سمايو معي الماشي وماشي النبي وسعون جري وماشي النبي وكأسن يهاي وماشي السلاسة ماشي المسلمين تلاقوا أورورين لها المسلمين تلاقي كلا جيو ومسلمين تلاقي لك كلا فرديو وهذا ندك المسلمين تقول لك دقائق إلى ورنمية وصان مع أساس ما أنت لا سيع عايو أخوان المسلمين كان يشيء فكر كود وحكم الإمام حسن البنا يا وحال إنك السياسات كشة كيسان كورن وحور يا قومنا ذاتك يليو إننا نناديكم والقرآن في يميننا والسنة في شمالنا وعمل سلف الصالح من أبناء أمتنا قدوتنا فإذا كان هذه عندكم من السياسة فهذه سياستنا وإن كان من يدعوكم إلى الإسلام وإلى تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام سياسيا فنحن والحمد لله أعرق الناس في السياسة بل نجي واكس أضو مركز ذاتك وعواهب وأيضا ما تحلقي وعلى سوق القريج معه بنانك قفل بدعادي صادقتي ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه مرك إما أن تكون مع الحق وترى هذا إسلامك قرآنك أيانا كلام بحناية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سبحانه قرآنك واقع ومسلمين تكرب هل كان هلا كانوا عدي كنت وصلنا هلا راعوا عدي قرمر سنة هلا قبته أهلا وسهلا لكن أنا إسلام كنت وصلنا هدنا ذاتك إسلام كنت دقاقاي عن هاي سنة وعن رجالين نقطة مركة حمزة بن عبد المطلب أسبابته كسر إسلامي وحايد مال يا وحايد أبو جهل نبي عاي سوء عينا نبي ولا مهلم جبر أو شيء يكتب حالي ساسا ما أنت دعضي وبحي أصو أبو جهل ومال فضيع هو ضيال الشيء كيسنا أتجد قان صدي وتنتو مدح أقول فتاة وحكيري أتصبه وأنا على دينه موحد عيني سأنو دينتي سكجرة مركز دين تسوق لي بمعنى وحقيرك وقبتي قف مظلوم أو عينايو oo aan isdifaacaynin oo hadana la sii haysto macna bin aadamnimada muru'ada dadnimadku waxay keenaysaa alwuquf ma'a almadlum madlumka in la garab istaaga dhaalimka laga bari noqdo maanta waxaan rajaynayaa marka insha Allah caalamul islaami waa u jeedaan maanta soo kala noqday inta dhaqdhaqaaq islaami socota oo islaamiyiinta la yiraahdo waxay rabaan ummadahoodu inay dad fiican oo sidii islaamku ah inay ku dhaqmaan isticmaalkii ina gumaystay kuwii inooga tagay oo inoo sameeyayna sidii isticmaalka inaan ahaan ayuu rabaa shucuubtu marka inay xoroobaan ayay u socdaan ama inaad maca tahriir noqoto in la xoroobaa ogolaato wa imma maca al-abid in la isgumaysto hoos la fiiriyo waa la kala baxay marka qofkii waxoogaa adduunyaha u xilanaya waa tii khudbadaan ku soo qaadanaya wa qala alladhi amana ya qawm ittabi'uni ahdikum sabila rashad ya qawmi inma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'
وأن يرى الرعا وإن الآخرة هي دار القرار قفك آخر ربا الدنيا وحب الله أهم مبادئ دي الدين تسهيل عشرة قفك وحوقا يرى ارتزاق وحوالة من الوقع قاتل لعاب من الدنيا درارك الدنيا ربنا عدوا دون تبرير فهو النقضة لكن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إلهي دين تسود جي إن الله يستيان الربا دين إلهي سود جي محالة وقت dadkoo dhan inay ku wada dhaqmaan wax la yiraahdo intana waa diin intana diin ma aha islaamkeenu ma qabo masaajidkana waa diin suuquna waa diin baarlamaankuna waa diin qof kasta waxa la rabaa meesha uu joogo ittaqillaaha haythu ma kunta cidii kala qaad marka afatu'minuuna bi ba'd al-kitaabi wa takfuruuna bi ba'd islaamku marka shaamil kaas yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala cizzada islaamka Allah soo celiyo ummadda muslimiinta dhibka ay ku jirto Allah ka qaado qofkii khayr ummadan islaamka u haaya ilaahay gacantiisa khayr ay nagu siiyo qofkii dhibaato iyo hagardaamo la wadana Allah inaga kaafiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh